annaga hadafkaygu wuxuu ahaa dee shir nabadayna in meesha lagu qabanayo ilaa aan markaanu burco tagnay qolyo reer awdal oo iyana joogay oo meeshii aanu ku degnay ayaa noo sheegay oo waxay yiraahdeen reer Sheekh Saxaa waxay go'aan ku soo gaareen in dalku kala go'o wuxuu yiri haddaynan go'aanka isku raacin oo isla qaadanin waxa noolay meesha ka bixi maayo sideedaba saas weeye ninka magaciisa waa cali xirsi baa loolan jiray wuxuu ahaa caaqilka beesha cali barre muuse abukar wasiir waxa waa dhowahay magacayga waxa la yiraahdaa maxamuud xasan idiida qawaacid baa la yiraahdaa injineer qawaacid waxaan ku dhashay meel la yiraahdo dhaxamo oo koonfur bari kaga toosan magaalada Ceergaabo oo adigu dhowr iyo 10 kiiloomitir u jirta halkaas aan ku barbaaray bartamihii kontomaadkii adigu sida la sheegay date kuma qoreen laakiin 1955kii meelaha bartamihiisa baan ku dhashay halkaas aan ku barbaaray adigu markaas 9 jir meelaha ahaa 65kii baa la iga kaxeeyay waxaan tagay magaalada Berbera ayaan dugsiga Quraanka ka bilaabay kadibna dugsiga hoose waxaan ka dhigtay magaalooyinka Burco iyo Hargeysa dugsiga dhexena waxaan ka dhigtay Hargeysa iyo magaalada Ayl oo ka tirsaneed markaa gobolka Bari standard 8 waxaan kaga soo baxay dugsiga howlwadaaga ee magaalada Muqdisho dugsiga sare waxaan ka galay iskuulka Sheekh Bashiir ee magaalada Burco waxaan ka baxay 1977kii kadibna waxaan galay kulliyadda jaalasiyaad oo muddo yar ku jiray kabacdina waa ka tagay waxaan galay jaamacaddii Gahayr kulliyadda Faculty of Engineering qaybta Industrial Engineering-ka waxaan ka qalin jabiyay 1982gii bilowgii marka waxbarashada waa guurguudhay ma aaba askari ahaa magacsada ahaa walaalkay baa ahaa policeman marka isaga marba meel loo bedeli jiray markii hore wuxuu joogay dekada Berbera haystay waxa qolal loo jiray wardi France markii dambe taliyaha booliiska gobolka Togdheer buu ahaa adigu 66kii markii dambena haddana Hargeysa loo bedelay markii dambena DC buu wuxuu ka ahaa magaalada Ayl 1971kii kadibna xabar baa loo bedelay adigu saasaan u gurguuri jiray sababtaas gurguurka keentay waxaan ka shaqeeyay oo markii hore shaqo ka bilaabay warshadii sokorta Mareerey oo 2 sano joogay kadibna waxaan tagay Hargeysa oo mashaariic laydo social development projects oo UNICEF fangaray jirtay oo baan qaybta technicalka haystay ilaa dagaalkii 88kii uu dhacay mashruuca qaybta qayb la oran jiray TIMO Transport and Equipment Maintenance Organization baan project manager ka ahaa ilaa uu dagaalkii dhacay kabacdi markii burburkii dhacay waqooyiga dagaalkii ka dhacay Hargeysa joogtay Hargeysaan joogay markii dagaalku dhacay intii muddadii dagaalku socday oo 3 bilood ahaydna waan joogay dagaalkii 88 ha markii dambena waxaan ka mid ahaa ganacsato Berbera xoolaha ka dhoofisa adigu 89kii ilaa 91kii markii dawladdii burburtayna waxaan joogay magaalada Burco habeenkii lagu dhawaaqay Umar Carte ku dhawaaqayay ulaha ciidamada waqooyiguna ay isu dhibeen SNM kuwa koonfurta USC Burcan joogay habeenkaas Yaman baan ka imid adigu muddo 10 casho baan joogay markaa kabacdina waa hadii habeenkii baan ka soo kolayo soo ka soo maxaa u qaadateen hadalka markaa ra'iisul wasaare ahaa Umar Carte Qaayib Allaah naxariistay ha de macni waxa ka muuqatay in uu doonayo in USC iyo SNM ay dalka wada qabsadaan oo maamul dawladnimo ka dhisaan ayaa ka muuqatay hadalkiisa marka laascaanood baanu muddo yar ka bacdi February marka waxay ahayd January 26 meelahaas ay baan u maleynayaa ka bacdi markii qoladii SNM iyo ay soo noqdeen oo soo galeen dalka waxay ku dhawaaqeen nabadayn Berbera ayay gobolada waqooyi beelaha degan ugu yeedheen macallihii shir degdeg ah oo nabadayna anigu shirka kama qayb gelin laakiin ergo kooban oo uu watay suldaankii wakiilkii suldaanka Ismaaciil Suldaan Maxamed Cali Shire uu watay baa Berbera tagay halka waxa lagaga soo dhawaaqay in la nabdeeyo ka bacdina shir guud la isugu yimaado beelaha waqooyiga isugu yimaadaan magaalada Burco adigu bilowga bisha May shirka dambe ayaan anigu ka qayb galay marka waftiga kamid ahay ma waftigii dambe oo shirka dambe ka qayb galayay baan kamid ahaa shirkaasi waa shirka Burco shirka go'itaanka Soomaaliland uu ka soo baxay shirka balka waran yaa meesha ku shiray maxaa laga shiray muxuu xaalku ahaa annagu shirka waxaanu ku tagnay
wafdigaa la socday oo dhowr iyo 20 ahaa waxaanu ka soo ambabaxnay magaalada Laasqoray waxaanu soo marray Boosaaso kadibna waxaanu tagnay Laascaanood Laascaanood markaa waxaanu kula kulannay laba qaybood oo laba ergo oo isbarbar socda oo garaad Cabdiqani iyo garaad Saleebaan kala wataan annaga hadafkaygu wuxuu ahaa dee shir nabadayna in meesha lagu qabanayo laakiin ma aanu fahamsanayn oo wax konsabta kama aanu haysanin arrinta goonigoosiga ah noguma bay jirin ajandaha mana ogeyn ilaa aanu markaanu Burco tagnay ayaanu ka warhelay oo qolyo reer awdal ah oo iyana joogay oo meeshii aanu ku degnay meel la yado guriga dalxiiska oo Burco ku yaala ayaa noo sheegay oo waxay yiraahdeen reer Sheekh Saxaaq waxay go'aan ku soo gaareen in dalku kala go'o marka annagu dee authority uma hayno xoog bay nagu qabsadeen marka idinku deegtashada haddaad yeelaysaan iyo haddii kale kabadibna annagii waa kulannay markaa dhulbahantii warsangeli baa tihi dhulbahantii warsangeli haa labadii ergo ee dhulbahante qaybtii garaad Cabdiqani watay ayaa la soo dhaweeyay asi wafdi ahaan qaybtii garaad Saleebaan lama soo dhaweynin oo dareemo ah macnihii inay weli ku xidhan yihiin koonfur iyo waqtigaa wax la oran jiray wax ku xidhan yihiin buur dhuubo iyo siyaad barre iyo waxa inkaas marka xoogaa lama soo dhaweynin dad shacab nin la yiraahdo ina sheebe oo habar jecla aba guriga u leeyahay dejiyay markii dambe oo kulamadii dambe oo midalan dhawaaqan iyo waxaan ka soo baxayna qaybtii uu watay garaad Saleebaan wax shaqo ah kuma lahayn totally kamana qayb gelin qaybtii garaad Cabdiqani watay iyo qaybtii warsangeli ayaa wakiilka Suudaanku hogaaminayay ayaa Ismaaciil Suldaan Maxamed Cali Shariif oo ahaa ayaa adigu la invite gareeyay annaga markii warkii aanu helay waanu kulannay dabadeedna waxaanu saaray guddi 3 iyo 3 warsangeli iyo 3 dhulbahanta ah waxaanu niri ka soo taliya yaa kamid ah ragax magac waxa kamid ahaa Maxamed Cabdi Cali Bayr waxa kamid ahaa nin la oran jiray Ibrahim Ismaaciil Bootaan iyo nin la oran jiray Cali Faarax Dhahar Cali Gargaar saddexdaas xagayga ka tirsanayd marka iyagii baanu niri bal meel ku soo shira oo go'aan waa 4tii bisha May wixii aynu bari ku jawaabi lahayn marka waxaan loo sheegay in shirka la qabanayo 5 bisha kadib iyagii markaanu u diray inay ka soo taliyaan wixii aanu jawaab bari bixin lahayn ayaa markii duhurkii ay ahayd baa waxa noo yimi odayaal waxa la yiri waxa la rabaa fadhi isbarasho beelaha marka 10 qof ka soo qayb galaan meel bakhaar la yado ku yaala magaalada Burco halka bridge-ka qarkiisa ku yaala bridge-ka Chinese ku dhisay oo la yiri wax la yiraahdo Cabdi Boorle ayaa la googlay meeshii baanu tagnay marka 10 aan anigu ku jiro oo iyo Ismaaciil Suldaan iyo adigu nima kale odayaal ah 10 baanu ku tagnay meeshii horteeda waxa yaalay gaari kaara ah niman dhalinyaro oo qoriyistaan waa joogeen marka anagu dee waxaanu isaga qaadanay inay waardiye yihiin oo meesha yani nabadgelyada ilaalinayaan bakhaarkii baa la fadhiistay waa la guulay marka meeshii deeqaad baa loo fadhiistay qoloba dhinac bay soo fadhiyay beelaha isaaqo iyana 10 ah baa fadhiyay waxa fadhiyay Samaroon waliyahaygi warsangeli iyo dhulbahantana 10 baanu ahayn ka bacdina shirkii bari lagu ballamay qorshihiisii ajandihiisii aanan markaa lafteeda ku talagelin ayaa la furay laba nin oo ninna yahay habar yooniso la yiraahdo ina Faarax Langare iyo nin habar jecla ah oo caaqil ahaayo waxa la oran jiray Cali Xirsi oo qolo la yiraahdo Cali Barre caaqil ah oo Muuse Abukora ayaa hogaaminayay kulanka nin dhalinyaro ahna wuxuu ahaa like secretary oo cidii hadlaysa ayuu qorayay ka bacdi iyaga khudbadihii bilaabay dabadeedna waxay miiska noo soo saareen dee qorshe aan sugaynay bari inay keenaan oo adigu 4 qodob bayna hor dhigeen 4 qodob wuxuu ahaa in la nabdo in gooni la isu taago oo gobolada waqooyi ka go'aan gobolada koonfureed iyo in shareecada islaamka dastuur laga dhigto iyo in maamul la dhiso 4 qodob oo ah marka 3 qodob oo nabadaynta iyo maamul in la dhiso iyo wax doodii kama dhicin laakiin soo qodobkii go'itaanka ayaa doodi ka furantay marka iyagu de qolada reer Sheekh Saxaaq way isku raacsanayeen iyo Ciise oo
ciise laftoodu dee waxay kula jireen SNM bayba qayb ka ahaayeen markii dambe oo dagaalkii kula jireen qolada Samaroonna waa tay noo warantay oo iyaga laftoodu markii arrinta la soo jeediyay odayaashoodii golaha fadhiyay waa taageereen kabacdi annaga 4 oday oo 2 dhulbaanta iyo 2 warsangeliya ayaa ka hadlay arrintii 4 oday nin waxa la oran jiray Axmed Xirsi Cawl iyo nin la oran jiray Aw Daahir iyo labadaas in 2 dhulbaanta ay ahaayeen iyo 2 oday oo la yiraahdo Axmed Sheekh Saalax iyo Axmed Saalax Dig oo warsangeliya bay isaga dambeeyay arrintii way ka hadleen dood badan bay ka jeediyeen waxyaabo badan bay tusaalooyin bay bixiyeen waxay tilmaameen inaanay suurtagal ahayn inuu dalka kala go'o inaan adduunku international community iyo adduunku yeelaynin inaanay wax meel mar noqon doonin inaan maslaxad umadeed ku jirin adigu wax badan oo de logic oo intii qof bini aadan oo macquulnimo loogu sheegi karo ayay kala hadleen laakiin waxaanu dareenay de caadifad badan baa jirtay oo iyo kacsanaan kabacdina qoladii baa hadalkii la wareegtay haddana dib u la wareegtay qoladii reer Sheekh Saxaaq haddana way ku celiyeen inay ka go'an tahay arrintaana aanu ku raacno markii doodii muddo socotay dhowr saacadood ah oo ay markaa habeenimada adigu 8 ba ku sii dhowdahay ayaa waxay kale ku celcelinayeen mar kasta go'aanka halka ka soo baxaa inuu yahay go'aan beeleed aan dastuuri ahayn oo go'aanka rasmiga ah oo officialka ah uu ka soo bixi doono golaha dhexe SNM golaha dhexe SNM marka waxay noo sheegeen inay yihiin 93 xubnood 93 ka 8 ka mid yihiin waxa ahayn beesha Ciise 3 nin oo midna yahay Samaroon ama Gadabuursi iyo nin dhulbaanta ah iyo nin warsangeliya ayaa weheliyay 82 ka soo haray reer Sheekh Saxaaq bay ahaayeen marka taa lafteeda waa ku celcelinayeen si ay macnihii noogaga dhigaan inuu go'aankani final noqon doono waxaanu kaloo u sheegnay odayaashu u sheegeen koonfur dhibaato ka jirta dagaal baa ka socda burbur baa ka dhacay aynu dawladda Soomaaliya ka dhisno Hargeysa oo dadka halka ugu yeedno oo halkan ay caasimad iyo xarun ha noqoto nagama yeelin kadibna markii dambe ninkii aan ku lahaa waxa la oran jiray Cali Xirsi ayaa hadlay dabeedna hadal adag buu ku hadlay oo ah yani hadidaad wuxuu yiri teknikada banaanka taala iyo dhalinyarada iyo wiilasha hubka sita oo banaanka jooga maxaad u haysataan inay meesha u joogaan waxa u haysataan inay waardiyeynayaan inama waardiyeynayaan kelmadda halka ka soo baxda bay sugayaan dabeedna wuu dhaartay intaasay dhaar iga tahay wuu xila furay wuxuu yiri haddaynan go'aanka isku raacin oo isla qaadanin waxa noolay meesha ka bixi maaya sideedaba saas uu yiri ninka magaciisa waa Cali Xirsi baa la oran jiray wuxuu ahaa caaqilka beesha Cali Barre Muuse Abukar beel garadaga iyo u dhaxaysa iyo waridaad tuulayro ku taala oo bal barkada Cali Xirsi halkaas deegaankiisu ahaa marka halka markay mareysay ayaan anigu intaan kacay waxa way toolid yar baa xagga dambe ku yaalay koonaha meeshii baan isiri aad dabeedna dad ergadayadii kamida oo xagga dambe markii hore meel kale aan ku ogaay gooru tageeran may halka fadhiistay ayaa markaan dhaafayay buu marada ay qabtay oo markaasaan kada loobsaday markaasuu wuxuu igu yiri wariyaahay waad u jeedaa waxa meesha ka dhacay meeshii dil bay arrintu ma iska taageera marka anigu meesha de waa nin dhalinyaro aan waan ahaayo macnaheedu hadalka odagu ku hadlaya dareen weyn ba ima gelin macnaheedu nin iska bootaynayo baan arkayay hadda cabsi dareen oo macnaheedu waa lidin dhibaya waa lidin laynaya uma aan qaadanin dabeedna waxaan ku yiri ka horna de waqtigii 88kii ilaa 91kii dagaal beeleedyo baa beelaha harti waqooyi warsagari iyo dhulbaante iyo beelaha isaaq ka dhaxeeyay oo markii hore labada dhinac waxa ka riixayay dhinacna dawladda Siyaad Barre ayaa ka riixaysay oo niman wufuuda soo diri jiray oo inay dagaalka geliyaan xagoodana qolada SNM-na in deegaan isaaq leeyahay nabad ahaado ma rabin labada dhinacba barashar baa naga saaraan jiray waliba qoladayada beesha warsangeli iyo qolada habar Yuunus Bari waxay odayaashoodu dadaal badan geliyeen in gobolka Sagaana dagaal ka dhacay muddo aan dagaal ku dhacay ilaa 89kii
nimankii ergooyinka oo maxamed siyaad soo diri jirena waanu diidnay inaanu go'aankoodii qaadano suldaankii warsagalaal loo naxariistay suldaan cabdisalaam go'aan buu ka soo saaray uu leeyahay ha dhaafina xuduudihiina dagaalka gelina adigu markii dambe qolada SNM baa soo gudubtay oo annaga dagaalka nagu bilowday halkaas dagaalku ka socday marka dad badan baa naga dhintay ilaa dad 500 ku dhow labada dhinac kalena sidoo kale dhacday ka bacdi marka ninkii odayga ahaa waxaan ku idhi warrageeni waa ku walfahoodii jiidalay iyo yaala meesha la yiraahdo iyo tuuraha ximan gareen daadsane 20 nin baynu nahay dahayna laayeen warsagalina hadduu dagaalamayo iyo hadduu iska celinayo iyaga u taala laakiin waxba hadeerde dabeedna god meeshii baan galay marka intii baan fikiro waxaan isiri bal nimanka waxaad weydiisaa hadalkan aad ku celcelaysaan oo golaha dhexo SNM baa go'aanka ka dabaysta ah leh yaa anaga nagu matela laba nin oo hartiya ku jira maxamuud cabdi cali bayr iyo Salaaman Daahir Afqarshi nin Cabdiraxmaan Tulwaa la oran jiray wuxuu kaga jiray Samaroon iyo 8 nin oo ciiso iyagu mabda ku raacsan markaan soo baxay baan waxaan u yeeray ninkii qorayay magacyada marka qofka hadlaya dabadeedna buuggii markuu herdhigay baan waxaan ku arkay ninkii markii hore ila hadlay magaciisa oo ku qoran buugga kadibna waxaan dareemay inuu intii doonayo inuu arrintii ka hadlo ka bacdina inaan magacayga qoray iyo in kale ma hube intaan kacay marka meel dhexda ah baa saddex suldaanka wakiilka suldaanka iyo nin kale guure la oran jiray maxamed guure iyo aniga ayaa isdhinac fadhinay guura isaga noo dhaxeeyay dabeedna intaan kacay soo wareegayo suldaanka soo dhinaciisa soo kala loobsaday Ismaaciil Suldaan baa waxaan ku yidhi Ismaaciil hebel miyuu kula hadlay markaasuu yiri ma aqaan waxyaabuu ka hadlayo waxba adigu hadal aanu fahmin ka bacdina waxaan u qaatay inuu intii approval ka helay waan iska fadhiistay halkayga markaan ku noqday baa ninkii la xaadiriyay ka bacdi ninkii cabaar buu soo aragtay kadibna wuxuu yiri hadday arrintu intaa tahay oo arrintu waa idinku raacnay weydin ayid ya ninkii markii hore igu lahaa ma yeela hadal ka bacdina ma hadda markii magaciisa marna ma hoshan kareen ma sheegay hadda waa dhinteen raggaas waxba kama noola labadii nin oo ka hadlay iyo kuwii markii hore arrinta rebelsionka ku sameeyay diidayay waxaan u malaynayaa qolada diidan Axmed Sheekh Saalax baa ka nool labadii nin oo markii dambe hadlayna labaduba waa dhinteen marka anyway ninkii markuu hadlay oo arrintii baa Ismaaciil Suldaan intuu soo jeegsaday buu garabka ay qabtay buu wuxuu yiri ninku muxuu ku hadlayaa markaasaan soo taad lahayd uu ila hadlay rasuulka taa igala ma hadlin ka bacdi iyagii cadifad waa kaceen Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dabeedna oday kale oo dhulbaanta ay ka daba kacay intii buu raacay ka bacdi waa bal istaagay adigu waa 8 iyo ruuc meelahaas dabeedna waa la dareeray annagoo sidii wax tii ku jira oo dabaqsan baanu meeshii ka baxnay waa lugaynay bariiskii baanu ka gudbinay xaggii shacabka meeshaan deganay baanu u lugaynay ka bacdi qoladii aanu u dirsanay inay arrinta ka soo taliyaan baa maxamuud iyo baan garanay maxamuud cabdi cali beeri baan meesha isugu noo waxaan wada waxa dhacay maxaynu yeelaa marka adigu ani weey habeenkii waa joognay subaxdii markay ahayd subaxdii ayaa Cabdiraxmaan Tuur niman soo diray oo wuxuu yiri qolyaha igu yeer marka inuu qolada dhulbaantay gaar loo kulmay ma aqaan laakiin qolyo odayaal warsagaliya Ismaaciil iyo Axmed Sheekh Saalax iyo maxamuud cabdi cali beeri adigu dhowr nin buu u yeeray anigu ma raacin laakiin waxay is yiraahdeen bay noo sheegeen markay soo noqdeen ka bacdi waxay yiraahdeen markay u tageen isaga iyo ninkii la oran jiray ku xigeenkiisii ahaa waxa la yiraahdaa Xasan Ciise Jaamac baa guri dabaq ah oo nin wakaalada biyaha haysan jiray wakaalada shidaalka haysan jiray oo markii dawladda oo reer mudug buu ahaa ninku guri uu lahaayo bay degan yihiin marka odayaashii markay u tageen Cabdiraxmaan wuxuu yiri qolada iyada reer Sheekh Isxaaq macnaheedu burburkii dagaalka guryaha dhismaha iyo nolosha iyo dhibashada iyo dhaqaalaha iyo kaliya naga burburinay xaqii maskaxdana waa ka burburay iyo garashada xalayto mowqif fiican baa qaadateen waa diideen waxay wadeen way soo taagteen maxaa markii dambe kalifay inaad yeeshaan ka bacdina Ismaaciil baa weydiiyay wuxuu yiri adigu miyaarad raacsanayn fikirka ma yaba yiri wax macquul oo la qaadan karo ma aha markaasuu wuxuu yiri adigu waa gudoomiyaha SNM oo madax waa reerka
maxaad ugu sheegi weyday tolkaa u odhan weyday ruuxani wax caqliga gelaya maaha kabacdina waxay yidhahdeen intaanu isagii hadlin baa xasan ciise jaamac wuxuu yidhi waa nalaynayaan dabeedna ismaaciil wuxuu ugu jawaabay ma nagaa doonaysaa in nalaayaan adigu meesha waa lagu soo kala kacay adigu barqadii baa markaa isagii wuxuu yimi meeshii halkii aanu deganayn meeshii talxiiska halkii buu khudbad ka jeediyey uu leeyahay macnihii waa agsab garaynay laakiin annagaa dee go-aan kale golaha dhexdiisana baa go-aan kale marka annaga lafteeda dhowr oday dhulbahantii oday warsagelaya baa ka hadlay iyaguna oo macnihii si indirect in fact support bay bixiyeen laakiin waxaanu ka tashanay oo macnihii aanu go-aankiisii gaadhay ma ahayn keliba markaa way duuban tahay taasi oo habeenkii sheekadan dhacday cidina marka horgarayn kabacdina markii iyagii cadifadii ka degtay oo la yidhi golaha go-aan ka gaadhaya bay dee dadkii iska kala tageen magaaladooda ku noqdeen marka waa 5 May 91kii kadib hool baa ku yaalla meesha hoolkiiba marka waxaa ku shiraya golaha dhexe SNM annaga marka waxaana la siiyey laba nin laba samaroona laba warsingelay laba dhulbahanta ah inay muraaqibiin noqdaan shirka fadhiyaan laakiin cod ma leeyahay ila markii hore ninkii hore nagaga jiroon baa cod kale kabacdina ajenda la soo qoray ajenda dheer oo baan u manayaa inuu dhowr iyo 10 qodob inuu 17 inuu 16 ama hube ajenda dheer baa la soo qoray ragga ka dooday min beriga hore asaaska SNM ragga ugu horeeyay la magacaabay ka mid ah duqsi loo oran jiray oo markaana cadaalad iyo wuxuu qaabilsanayo baa arrimaha hogaaminaya oo reer dood qolada liyadaba ahaa ajendihii macnaheedu arrimo dispute oo iyaga dhexdooda iyo golaha iyo maamulkooda iyo waxa baa la soo hormariyay pointkii ahaa gooni isu taaga waa loogu dambeysay gadaal bay mariyeen adigu shirku waa socday maalmo de Friday iyo waxa fasax baa la qaadanayay uu jiitamay adigu dhowr iyo 10 casho markuu socday markay mareysay 16 baan u marayaa bisha May ayaa nin BBC-du wareysatay xamar jooga oo markii hore dawladda maxamed siyaadna wasiirka ahaan jiray Cismaan la yiraahdo markaa caynaasha Cismaan Kalluun ninka la yiraahdo dabeedna Cismaan Kalluun baa wuxuu ka hadlay inay heshiis ku galeen General Aidid in ay dawladdu wada dhisaan General Aidid iyo Turba maya iyo SNM waayo isagu SNM buu represent gareynayay marka Muqdisho jooga galabta waa BBC-da shanta iyo meelahaas la dhageysan jiray magaaladii Burco hal mar soo dhaqaaqday oo mudaharaada eeriyadii bay kala xidheen adigu waxa la yiri berri baa arinta la dhameynayaaye adigu waa maslaxay way noqdeen subaxnimadii dambe ayaa kolonyo baabuur oo ilaa hadda tiradood ma qiyaasi karo ilaa haddana 40 ama ka badan oo Hargeysa iyo Berbera ka yimi oo qaar hubaysan yihiin oo guurayaba haddana soo galay magaalada magaaladiina waa soo kacday dabeedna Cabdiraxmaan iyo inta muddadaas goosiga iyo sheekadu socotay mar qura magaca Soomaaliland lagu ma dhawaaqin kelmadda Soomaaliland la yiraahdo laakiin gooni isu taag waxa la yiraahdo baa laga hadli jiray subaxnimadii bay marka barqadii marka ahayd baa Cabdiraxmaan guriga seerka lagu geliyay seerha Hargeysa laga soo iyo Berbera laga soo duulay iyo qoladii Burco iyo arintii cirkay ku dhigtay dabeedna waxa lagu khasbay waxa la hadda ku dhawaaqaysaa dabada laga soo kaxiyay meeshii baa la keenay hadda ku dhawaaqay horta saasa dhawaaqo 18 May ani wax balaani loo sii qorsheeyay go'aan golihii ka soo baxay midna ma ahayn arinta caadifada ah oo kacdoonka abay ahayd saasay ku timi markii uu ku dhawaaqay baadeel kala dareero qoladii xagga ka timina waa noqotay qoladii kale magaalada bay ku noqotay shirkii goluhuna bartiiba ku xirmay shirkii hogaaminay ya shir gareynay shirka Cabdiraxmaan baa shir gareynay marka shirkii golaha SNM markii hore ajendayaasha loo qoray halkii buu ku soo xirmay isagii markii lagu khasbay inuu ku dhawaaqo in gooni la isu taago magaca Soomaaliland maalintaas uu soo baxay intii ka dambeysay kulan dambe la isugu soo noqon wax dambe oo laga wada hadlo ama administration ama waxba muddo dambe in anagu waxaan soo joognay ilaa June baan u mariyay 6 meelahaas aan ka soo baxnay